mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxay shaqo joojin ay ku sameeyeen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed oo bilihii ay soo dhaafnay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya xilli gudoonka baarlamaanka uu ku sugnaa holka sida ku meel gaarka ay ugu shaqeeyaan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in shaqo joojin ay ku sameeyeen gudoonka baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed waxayna sheegeen in uu gudan waayay waajibaadka ay u doorteen shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle gudoonka baarlamaanka ayaa lagu eedeeyay in muddooyinkii ay soo dhaafnay uu ku sugnaa mid ka mid ah hoteelada ku yaal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyagoona xildhibaanada sheegay in taasna ay cuntamo weysay isla markaana ay go'aansadeen in kulamo ay ka yeeshaan sidii ay ka yeeli lahaayeen gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed oo hadda ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle xildhibaanadan oo maalmihii ay soo dhaafnay kulamo gooni ah ku yeelanay magaalada Jowhar ayaa waxay kaga areensanayeen maqnaashaha gudoonka baarlamaanka oo bilihii ay soo dhaafnay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya siyaasi daahir qaran oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle isla markaana hadda ku nool magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu ka hadlay isbeddelka ku yimid xildhibaanada Hirshabelle iyo shaqo joojinta ay ku sameeyeen gudoonka baarlamaanka Sheekh Cismaan Bare Maxamed isagoo sheegay in talaabada ay qaadeen mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle loogu baahnaa mar hore isla markaana hadda ay soo dhaweynayaan shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ay matalaan xildhibaanada Hirshabelle haday dugturiso arankuna waa ka dabaroor baalay aranku dabeero jooga laba arko hadii madaxdii baarlamaanka u sarreysay ay Muqdisho fariisato in baarlamaanka kalena fariisanayaan nin walba xamaray xilka dhacay noqonayaan xaqiiqo waa taas marka ka soo gudbo talaabada baarlamaanku ay hadda qaadeen shacabku mar hore ay ka sugayeen way ku amaanayaan waana ku dhiiri gelinayaan laakiin yaani noqonin hambaadil buxood iyo hijra hafiiriyaan talaabada ay qaadayaan iyo halka ay dhigayaan labadaba midaan way ku amaanan yihiin laakiin midaan ku xigta halka ay dhigayaan hafiiriyaan ummadana waxay u baahan tahay samata bixin ummadana waxay u baahan tahay in way qaawan tahay dharka lagu soo celiyo sida hadda xaalku yahay ummadku si fudud kuma soo celin karto baarlamaanku talaabooyin yar bay qaadeen dhaliilaha waxbay ku leeyihiin laakiin hadda waxaad u maraysaa inay iska tirayaan dhaliilihii horeeto waxaan leenahay xubnaha baarlamaanka way ku mahadsan yihiin talaabooyinka ay qaadayaan oo u eg sasaanka baarlamaan ha ku sifoobaano waxay ku sifoobayaan markay samata bixin bay taagan tahay Hirshabelle maanta haddaan la samata bixinna dee waa meesha hore ku noqo waxaa samata bixina mas-uuliyadda maanta ay ka fariisiyeen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ma ahan mid ay qabsadeen waa mid ay shacabka u qabteen aan dhihi karnaa waa mid ay ummadda ku metelaan baan dhihi karnaa ha keenan marka mid kale ay ummadda ku metelaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aragtidayda intaasaan kusoo gaabinaya su-aashana waa kuu furan tahay dhanka kale siyaasi daahir qaran ayaa waxa uu sheegay in arrinkan ay sameeyeen mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle ay fariin u tahay madaxda sarsare ee Hirshabelle waxa uuna sidoo kale madaxda ugu sarsareysa dowlad goboleedka Hirshabelle uu ka dalbaday in sidii ay ugu idmadeen shacabka ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle ay ugu shaqeeyaan waxyaalaha lagu garaaco waxaa ka mid ah ninkii xilkiisa gudan waaya xilka in laga qaado ka dambena uu ku waana qaato gudoonkan baarlamaanku hadduu gudan waayo xilkiisii waa nin la bartay bulshadiisii wixii ay ka sugaysay ayuu la gaabiyey waa xaqiiqa taasi ma aha wax geed ku aada cidna loo qarin mayo indha laga baqana ilaahay baa leh inaan qof ka xishoonana waa waxa dalka indhaha ku yeelay in qof laga xishoodaa laakiin haddii laga run sheego wax kasta ah waxaa imanaya in wax badani hagaagaan gudoonka baarlamaanka
baalkiisa madaxda waxaa uluuca in ninkii xil loo dhiiba xilkiisana gudan waayo xilka laga qaado. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Ismaan Bare Maxamed oo aan la xiriirnay ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu ka hadlo shaqo joojinta ay ku sameeyeen xildhibaanada Hirshabelle. xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in hadda ay diyaarinayaan mooshin hadda ka ballaaran midka shaqada ay ugu joojiyeen gudoonka baarlamaanka. lama oga halka ay ku dambeyn doonto arrinta hadda ka soo cusboonaatay mudanayaasha baarlamaanka Hirshabelle iyo gudoonka baarlamaanka.